قارهان هرقيسا رجل أفر نينو إسقبه نين لا أفر تنبا أنا قبه سيدنا عقي أفر تنبا أنا قبه حاسس قوم اللوط سنادان وما قيلين أيان maxay uga qaylin waayeen qowmuluudnimada maxaa kuwan liwaadka lagu soo qabtay maxkamada la hor keenayo ee publica loo sheegay ay uga hadli waayeen limaada ninkum yaanu xaq lahayn isagu wadumarku baa xuquuq leh waa fasaad bulshadeena in badan oo kamid ay u rixinayso ama ay u dhagan ugu shayba waxay nagu soo kordhaya dadka dibadaha ka imanaya faraha badan le qaar badan oo kamid yihiin afkaar bay xambaarsan yihiin aan la mahadin doonin cidhibteeda iyo caaqibadeeda aan la mahadin doonin ayay xambaarsan yihiin haddaan laga digin oo dadka aan dhawaaq dheer loogu sheegin oo dowlad iyo shicib aan laga kicin fadhigana guryaheenna ayuu daadku inoogu soo geli doonaa guryaheenna waxay sheegtay inan ka mida shaqo qaranta qablihii shaqo qaran ee waxa weeye ka soo baxay jaamacadaha oo maxkamadaha dadka ka shaqeeya ahay waxay ii sheegtay inay markaa la keeno maxkamadaha la keeno maxkamadaheena la keeno gaar ahaan hargeysa rag le afar ninoo isqaba nin le afar tanba anaa qaba sidina agi afar tanba anaa qaba xaasas qowmuluud wax ka hadlaya iyo wax ka qeylaya midna ma jiro waxaa laga yaabaa garsooraha la hor keenaa inuu idhaahdo xukuna qodob aan ku xukumoba ma hayo war qodobkiisu waa dil اقتلوا الفاعل والمفعول كلغو سميه كسميه لبدبا ولا ديليا علماء الاسلام كو waxay waliba dilka ugu fool xun dil ayaa la dilaya fuqahada qaar waxay fatwoodaan culimada qaar ko fuqahadu buurta buur ugu dheer inta la saaro in laga soo tuurayo sida tiyubka si ay hawada ugu soo qarxaan oo isagoo hilibkiisa dhulka laga ururinayo hatta dil caadi oo raaxa leh aan la dilay qowm luut waxa lagu haligay sida loo halaagay cid loo halaagay ma jirto dhulka lala jaray sida u dhamaayeen samaa dunyaha lagu dhaweeyay markaas la soo foororiyay faj'alna 'aliyaha safilaha ba ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaanu ka yeelay qaybteedii sane hoostaanu marinay xageedii hoosana hoos dushaayaan soo marinay malaku jibriil alayhi salaam ayaa garbihiisa kamida galiye dhulka dabadna intay ku fadhiyeen ba waa la fujiyay ilaa samaa dunyaha malaa'iktii joogtay dhawaaqa diiga ay codka diiga ay maqlayeen waa la soo foorariyay dabadna dhulka ayaa ka daba yimid xabaal kale looma doonin waa qowm luut maxaa yeelay waxay sameeyeen faaxisha sida nabi luut ku wacdiyay ma sabaqakum biha min ahad min alalamin cid alla cid idinka horeysay waxaanay jirin baad la timaadeen buuri innakum la ta'tuna rijala shahwa min duni nisa marag baa wax weydiinaysaan dumar sakadi ya markay faaxishadu halkaa gaadho zina waa laga yaabaa ruuxa in la yidhaahdo war hanaa u geysay shaydaan baa ku duubsaday gabadha iyo ninkaas ku duubsaday war bal nin u tagaya oo waliba ku faanayo ummadda hortoodii oo la anaa qaba walka warra billahi calaykum barina naagna qabta ka eg dabeedna waxay noqonaysaa silsiladaa socota qaar baa laga yaabaa markii inay la soo boodaan dunida gaalada qaar baaba sharcigooda ku jirtaa kuwa maxaa loo halaago waayey inta inaga layna halaagayo ruuxa ilaahay islaamnimo iyo iimaan uu siiyo haddii islaamnimada iyo nicmadii alla uu siiyo uu ka kufriyo uu ka cadaab xun yahay ka gaalka asliga ah sida ninka ridoobaya xukunkiisu dil u yahay isla marka la qabto gaalka isagoo gaal baa tahay halkaa isagoo iska taagan loo dili maayo sabab kale uu la yimaado mooyaane laakiin murtadnimaa loo dilaya waad ridowday keliya baa ugu filan dil man badala diinahu faqtuluuh buu nabigu yidhi ninka diintiisa bedela dila kuwa garsoorayaashaana waxaan leeyahay haddaydaan qodob u haynin ilaahay baa idiin sheegay qodobkaad ku xukumaysaan man badala diinahu faqtuluuh murtadka diintiisa bedela dila ninka qowmuluudka faacilka sameeyey iyo ka lagu sameeyey labadabana waa la dilaya ma qaar qodob loo daydayo kuwan oo kale shareecada bayaan bay ku yihiin bayaan haddii kale garsooraha ka meermeeraya iyo wadaadka ka aamusan iyo ganacsadaha daawanaya intaa midna badbaadi maayo abadan waayo haddii ilaahay ciqaabkiisa uu keeno kii dulmiga sameeyey iyo kii aan samaynba wada camimaya wattaquu fitna laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa war iska ilaaliya fitno iyo dulmi
aan ciqaabkiisu ku dhici doonin keliya kii sameeyey ba ilahi subxaana wa tacaala nabiguna wuxuu uhi calayh salaatu wasalaam wanaagga waa idin isfari xumahana waa idin iska reebi ama ilaahay ciqaabkiisuu keeni doonaa markaasaa rabbi baryi doontaan markaasaa laydinka aqbali waayi doonaa maanta karoonaa jira abaaraa jira macishad barar baa jira dhib badan baa jirta miyi iyo magaalaba macsiyadanaa keentay haddaynu waxaa aynu sheegayne ka sii xun kabaa'irtan waaweyn kabaa'ir dunuub iyo gaalnimo haddaynu ku darsano diintii ka baxayaan dhallinyaradeenni waxaynu sugnaa waa ciqaab walaalayaal ilahay waa facaal limaa yuriid waxaynu maqli jirnay dowlad heblaaye waxay samaysatay gantaal qaaradaha ka gudba war ilaahay wuxuu soo diray bacterian cidiba arkayn oo 5 qaaradood dunida 6 qaaradood dunida isaga gudubtay oo nin inuu ku soo socdo iyo inuu hayo iyo inuu soo jiro midnaba aan garanay ku weyn iyo ku yar hadda waa tag of virus makhluuqaadka alle ku ugu daciifsanaa ayaynu iska celin karlaanay waa ku ugu daciifsanaa ya haddii ilaahay ciqaabka waaweyn ugu salido barka war ya tarab tarab baa loogu dhimanaya dunidii tarab tarab waa cibra markaasa iyadoo halkaynu ilaahay uga noqon lahayn aynu rabbi bari lahayn